Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan asxaabta kusoo dhawaada channelkeena. Maanta waxaan rabnaa inaan diiradda saarno ama su'aalo badan nooga yimaadeen DV Lottery-ga. Su-aasha ugu badan ee dad badan soo weydiinayaan waxa weeyaan DV Lottery-ga ma ku xareysan karaa baasaboor la'aan anigoo aan baasaboor haysan? Sidoo kale waxaan rabaa inaan la wadaago dadka daneeya DV Lottery-ga in nasiibka qofku uu ku jiro meesha, sida awgeed aad alla ka baridaan in nasiibkiina uu idin aqbalo. DV Lottery waa wax loogu talagalo dhammaan dadka daneeya in ay yimaadaan Mareykanka. Marka maadaama dal weyn uu Mareykanku yahay, dad badanna jecel yihiin inay yimaadaan, waxaa loo sameeyaa bakhtiyaar nasiib. Su-aasha labaad aan rabo inaan iyadana ka jawaabo waxaa weeyaan ma computer ayaa doorta dadka mise DV Lottery-ga dad ayaa u shaqeeya oo kala saara dadka? Waa su-aal aad muhiim u ah, dad badanna aysan wax badan ka ogeyn. Haddii aan ku hormaro su-aasheeda koowaad ee ah ma ku apply gareyn karaa DV Lottery baasaboor la'aan, waxaan leeyahay haa, waad ku apply gareyn kartaa, waadna ku codsan kartaa adiga oo baasaboor haysan. Laakiin waxaa lagaa rabaa aqoonsi kale oo aan baasaboorka ahayn ama dalkaaga ah oo la aqoonsan yahay, sida haddii aad haysatid ID card wadankaaga oo mataqaanaa ah aqoonsiga localka qofku uu ku joogo wadankiisa. Haddii aad haysatid ID card waad codsan kartaa, waadna ku apply gareyn kartaa, laakiin siyaabo badan ayaa loo maraa. Sidoo kale dad badan oo waxaan arkayay leh qofka wax bartay iyo qofka aan wax baran keebu u fudud yahay. Waxaan kugula talinayaa haddii aad wax baratay inaad waxbarashadaada heerkeeda sheegato. Haddii aadan waxba baranna aad ku qorto waxba ma baran marka aad xareysanayso DV Lottery-ga, sababtoo ah qofku markuu wax barto waxaa laga yaabaa inay performance-giisa eegaan. DV Lottery-ga su-aasha kale oo aan rabo inaan uga gudbo waxa weeyaan oo dad badan weydiiyeen ma waxa xula DV Lottery-ga oo select gareeya dadka computer? Maya, wax computer oo select gareynaya dadka ma jiraan. Dadkan waa dad la kala saarayo. Haddii la dhiho computer ayaa select gareynaya, dad badan ayuu mataqaanaa select gareyn lahaa oo mataqaanaa aan buuxin faylka si fiican u buuxin. Sida awgeed waa la jeekimaa, waa la eegaa, waana la tixraacaa qofka. Marka la hubinayo hal meel oo ka mid ah hadday kaa khaldan tahay, waxaa kugu dhici kara in lagaa kansalo inaad nasiibkaaga hesho. Marka sidaa awgeed computer waa isticmaalaan sax oo dadka oo dhami ama mataqaanaa migrationska oo dhan ayaa isticmaala, laakiin computerkaasi waa computer la hagayo, la maamulayo, gacanta lagu hayo, wixii loo sheegana qaadanaya oo sameynaya. Awgeed waxaan rabaa inaan dadka u bayaaniyo in waxa koowaad uu yahay nasiibkaaga. Marka nasiibkaaga waa inaad aamintaa. Haddii aad xareysato oo aad aaminto ma helaysid, waxaa kugu dhacaya inaad weysid. Sidoo kale waxaan idinka codsanayaa inaad channelkan subscribe saartaan, like-na saartaan muuqaalkan, si saaxiibo badan oo fikir khaldan uga dhaadhacsan yahay uu u gaaro. Idinkana waxaan idinka codsanayaa inaad su-aalaha muhiimka ah aan dadka ka jaahil saari karo aad la soo wadaagtaan, si aan asxaabteyda badan aan uga jaahil saaro cilmigan ku dheehan bakhtiyaar nasiibka ee la yiraahdo DV Lottery. DV Lottery-ga markii si loo eego wax weyn ma ahan.
muuqaalka xiga waxaan kusoo gudbin doonaa sida ugu macquulsan ama ugu fudud ee aad u buuxsan kartid DV Lottery adigoon haysan wax baasboora. Haddaba haddii aad rabtid inaad casharka labaad ka faa'iidid wax badan, fadlan subscribe saaro channelkeena, muuqaalkana like saar si saaxiibo badan sida adigoo kale ah uu u gaaro. Waxaan kaloo idinkula talinayaa dadka xaraystay ee baasboorka haysta in sawirka uu yahay muhiimada koowaad ee aad saaraysaan DV Lottery-ga. Sawirka oo aad qurxisid oo iska habaysid ayaa waxaad ku heli kartaa in lagu aqoonsado laguna qaato shaqsiga nasiibkaas ku guuleystay sanadkan. Sidoo kale waxaan rabaa inaan dadka ka wacyigeliyo inaysan samayn 2 jeer inay xaraystaan.